الشيخ شاكر واستقيمات وإيمان وحصول ويبقى ولو وحنا مقالة يومي مالها وصدر في كامل الرجاء صارت عليه عن قوة لي خاصة دين كانوا ينفرسوا دستور كانوا ينفرسوا قفوا الله وحنا نقول من هاي إن لما يستمروا اسمه دولة كجيل وهو لما يستمروا هذا من الصلاة مركب هو لما يستمروا وهي فرصة إنسان لما يسترجع تجارك كل كتاب خوارج وهي فرصة إنسان خوارج تلو كيدي سكانها خوارج وهي فرصة إنسان وهي مكان إنسان ماذا ويلا شباب وهي فرصة إنسان شعب ولادي وحرمات إنسان هدي يعني هذا سأعرف فوق البعضان ومهم أدام إليكم عدي بوشك في النساء بقيني من دور أسور الوساء يعرف الوساء تغطي بكم عليه بوشك بكوي قلبي مطلق بياه كل نوعي يفتي بياه مالي قيمة سيكون درمان ماشي كل waxaan muqadarajooy oo Soomaaliyeed ka u ragay u muuqata adoo ugu weyn wadada fadlan ku leeyahay wadada gudihiisa waa xawaalista waana in la qorayaa waana in kulligeed gudubnaa ilaahiga laba shay oo kale waxaan jeclaan lahaa inaan xasuusiyo oo dhibka ugu badan oo haystaa dalka مدوى مصطمات وبيشيك هو مصطمات وحالتان هو مصطمات وشغلوا بلي وقصوت على ما أخوه يسوى مصطمات وعدالة أمل هو مصطمات وإحل هو مصطمات وحوى البرنات الحنة ودين تنبيو أنا يوضعي ومصطمات وأنا كل أدامة وقالت وقال الإمام وكل جينا مصر وكسر ذلك سنة إلى أرجع الله Soomaaliya ku haya waxay tahay qabyaaladii ayaa laga noqon rabtaa diinteena ana qabyaaladii ay dadku ilaahay farayaan ay waxay u baahan inay tahay qabyaalada waxa ugu horeeya sida culimadu noo sheegtana sidaas ma aha sida quraankeena ku qoranna quraanka waxa ku qoran waj'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu in la isku garto kaliya Soomaa qabyaaladii ayaa waxay noqotay aasaaskii nolosha waa xumaan ka daran Soomaaliya culimada waa inaan dadka laga daalin loogu yeeraa marka والله شيغا dariiq khalada inay nagu wado tii dalka dumisay inay tahay 30 sano oo soo dhaafnay oo dibka ku jirnay tii noo keentay inay tahay 30 ka horeeyay qaybtiisa ugu dambeysana burburka iyadoo inay mas'uul ka ahayd inta inoo dhiman waan idin soo dhaweynay sheekana waa u mahad celinaynaa dawladnimada ku fara adayga qolo iyo qabiil يا كوحير مالوا لو غاري واي انت ادين دمن شعب دلنيري وايل كان عصده يا علماء كلين اسراع هدي ادو سمربتين سو دweey ان شاء الله دولدنimada ilaahay dibka naga bixiyo ilaahay umada Soomaaliyeed qalbigooda soo dhaweey ilaahay midnimada ha nagu wado ilaahay qabyaalada ha naga ilaaliyo
ilaahay qof walba oo qarannimada ka soo horjeeda ha naga qabto ilaahayow qof walba oo qarankeena duminaya naga qabo ilaahow rabbiyow qof walba oo qarankeena duminaya naga qabo ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha u nimceeyo ilaahow dhibka ha ka qaado ilaahow cadowga gudaha iyo cadowga dibadda naga ilaali ilaahay shacabka Dhuusamareeb ha barakeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.